wariyaasha madaxa banaan iyo ururada u dooda warbaahinta ayaa dowladda Soomaaliya ka dalbaday in uu xuriyadiisa la siiyo wariye Cabdullaahi Kulmiye Cadow oo muddo 3 maalin ah u xiran hay'adda dambi baarista ee NISA. Haajir Cabdiqaadir Nuur ayaa warkan eegaya. حق ماهن حيرنا ماهن حرق وريه عبد الله كلميه waa qaar ka mid ah wariyaasha madaxa banaan iyo ururada u dooda warbaahinta isu soo baxan waxay ku muujinayeen sida ay ugu xun yihiin xariga loo geystay wariye Cabdullaahi Kulmiye oo muddo 3 maalin u xiran hay'adda NISA. dowladda ayay ka dalbadeen in xuriyadiisu siiso wariyaha maadaama xarigiisu aan waafaqsanayn sharciga. waxaan maroonaa wariyihii labaad oo mid hore ayaa 4 bil god lagu hayoon warka ka lahayn maantana waxaan maroonaa mid kale in habeen saq dhexe 12 habeenimo gurigiisa loogu dhacayo albaabka loo jabiyay. arrintaas waxay khilaafsan tahay dastuurkan aan hadda hayo xeerka ciqaabta wariyaasha in lagu xukumo ay mamnuuc tahay. madaxweyne Farmaajo 3 May uu sheegay khilaafsan tahay in habeen qof waaran ayadoo la wata xataa la soo xiraa mamnuuca hadduusan dembi gacanta kula jirin. Cabdullaahi Kulmiye wariyaha xirfadlaha iska badaayay waxay khilaafsan tahay xeerka saxaafadda ee 2016 madaxweyne Xasan Sheekh saxiixay anagoo ka qaylinayna mar labaad oo saxiixay madaxweyne Farmaajo bila ka hor. horta taliyaha hay'adda nabad sugidda maanta wuxuu ahaa nin saxafiya oo muddo ka hor saxaafadda cabanaysa ayuu ka mid ahay. shuruucda saxaafaddana waa yaqaanaa dadna waa waraysan jiray. bal horta sharcigaas inuu dib u fiirsho haddii alla waagu wariyaha ahay xasuusto waa ku tali lahay. waxaan kaloo aan rabaa xalay wasiirada la magacaabay waxaa ka mid ah 2 wariye wasiirka amniga Xasan Xudubey iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Al-Cadaala. ayaga laftirkoodana waxaan kula tali lahay maanta shaqada inay ka bilaabaan haddii alla ku ruuy arrinta taagan inay wax ka qabtaan oo ayaga laftirkooda ay dib u xasuustaan markay saxafiyiinta ahaayeen oo dhibka saxaafaddu ay qabto ay soo mareen. xariga loo geystay ee sharci darrada ah ee wariye Cabdullaahi Kulmiye Cadow oo wariye Soomaaliyeed oo la yaqaan oo waqti dheer soo shaqeeyay isagoo shaqadiisa maaragtay qabsanaya shaqada saxaafadda ee madaxa banaan qabsanaya ayaa habeen madow loo dhacay oo maaragtay argagax la geliyay qoyskiisii iyo asaga intuba. waa ka xunnahay xariga walaalkeen Cabdullaahi Kulmiye Cadow oo ka tirsanaa warbaahinta KNN horeyna muddo dheer saxaafadda si mutadawacnimo ugu soo shaqeeyay iyadoo duruufaha dalka ay sidan ka adkaayeen. marka waxaan leenahay la sii daayo. sidoo kale waa aabbo Soomaaliyeed oo 8 ilmood oo hooyo la'aan korsanaya hooyadiisa waayeelana maaragtay mas'uul ka ahaa. marka waxaan leenahay la sii daayo. waxaan aad ugu murugoonaynaa la tiiraanyeysanahay aan ka xunnahay oo cambaareynayna oo aan isugu imaanay soo baxan ugu horeeyna oo ugu dambeeyna aan u sameeynaa waxa weeyaan wariye Cabdullaahi Kulmiye Cadow oo aan maanta aaminsanahay wariyaashana sifa sharci darro ah in lagu soo xiray loo dhacay gurigiisa saq dhexe xilli habeen ah. haddaan nahay warbaahintii waan qirsanahay in qof muwaadinka la soo xiri karo in la soo eedeyn karo waan aaminsanahay. laakiin muhiimadda koowaad iyo labaad iyo saddexaad waxay tahay sifaha loo soo maray wariye Cabdullaahi Kulmiye oo dadkii iga horeeyay ay sifeeyeen in ay tahay wada qaldan oo aan aaminsanahay in xitaa haddii la yiraahdo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo dastuurka in meelna uu kaga qorneen in qof muwaadin ah oo aan eedo lagu haynin oo aan la oran karin maanta dhibaatada noocaas ah la si waarin maxkamadeed ay jirin in 6 saaxiibinimo loo dhaco gurigiisii oo ilmihii markaas 8 ilma oo isagu aabbo ahaa hooyo la'aanta uu kornaysa hadda maqasheenba walaalihiisii hooyadiisu waayeen in guri looga dhaco la dhibaateeyo. arrintaasi waxaan leenahay waan cambaareynayna waan ka soo horjeednaa. Cabdullaahi Kulmiye ayaa maalmo ka hor lagala baxay gurigiisa iyadoo xarigiisu u yimid markii uu wareysi ka qaaday ganacsada Abuukar Cumar Cadaan. Haajir Cabdiqaadir, RTN TV, Muqdisho.